dadkii gumaystaha ka hortagoo dhamme waxay qaateen fikrada in la xoroobo, in la midoobo, in la horumaro. soomaalida laakiin maanta iyaga su-aal baa u taalla ah, bikulli atyaafihim isku daro saddexdii shay miyaynu ka tanaasulnay? midnimadii umamku ay raadacaynayeen inagu ma waxaynu ku bedelay tamsiiq, tuulaba tuulaha ka sii durugto, qabiilba qabiil ha ka baxo, reer waliba keligii ha istaago? ma fikraddaasaynu ku bedelnay fikraddii qowmiyiintii iyo yasaariyiintii iyo islaamiyiintii iyo wuxuuba raadacaynayeen? awal waxaynu raadinaynay ama saddexda kooxoodba waxay raadinayeen xornimo, gobonnimo, istiqlaaliya, inay gaar isu taagaan. ma waxaynu ku bedelanay dhammaanteen marka la isku daro inaynu gaal isku xoojinno iyo gaalu yeedhasho iyo mujtamaca duwaligii inuu kuu taliyo in lagu isticmaarsado? mujtamaca duwaligaa sida tan yidhi, caalamkowna soo gaadha, ciddana inoo kaalaya, wixii aynu raadcaynayna ahaa dadow naga taga, annagaa tashanayne, xorriyad baanu rabnaa, istiqlaal baanu rabnaa. ma waxaynu ku bedelnay dhammaanteen cagsiga inaynu u fakarno ah almujtamac duwali wax la yidhaahdo? mujtamaca duwaligaa waxaa inaga raba, mujtamaca duwaligaa sidaa doonaya, dunidu hayna soo gaadho. waxay kooxaha horeo dhammi raadacaynayeen wax la yidhaahdo annahda, horumar. ma dumin iyo dagaal iyo digdig baa lagu bedelay? idan bikulli lmandaq afkaartii qowmiga ahayd iyo tii yasaariga ahayd iyo tii islaamiga ahayd, saddexda kooxoodba wixii ay doonayeen maanta ma taallo. waxa yaalla saddexduba fikradday rabeen cagsigeeda. su-aasha isweydiinta le markaa waxay tahay mal makhraj? ma jiraa exit? ma jiraa way out? tuunalkan madow, godkan madoowa la roorayo ma jiraa meel looga baxaa? meel laga bixi kara ma jiraa? ummadda soomaaliyeed laakiin waxay isweydiin lama waxay la mid noqotay sidii falasafada. philosopherska waxay idhahdaan waxbaa kulmiya, waxa kale oo dhanna way ku kala gedisan yihiin bay idhahdaan. falsafadda maxaa kulmiya? falsafadda waxaa kulmiya baa la yidhaahaa su-aalaha la baadi doonayo jawaabtooda, su-aalaha kulmiya bay idhaaheen. ama marka jawaab loo tago filosof raacsani ma jiro. wax jawaab falsafiya la yidhahaa markaa ma jirto, waa afkaar kala baxsan oo qoloba dhan martay, laakiin waxay wadaagaan su-aashay iswada weydiinayaan. soomaalidu ma sidii noocaasay noqoto? mid wax weyn uma arko mujtamaca duwaligii inuu rabo inuu ku saytareeya, waa wax la fahmi karo. reer galbeedku dunida inay saytareeyaan iyo isla weynidoodi iyo kibirkoodi iyo dadka inay gumaystaan, caalamka afraadda kama warramayo, ka caalam inay u gumaystaan, waa wax la garan karo. goormaa mujtamac duwaliyay dadka xornimo doon u ahaan jiray? ma jirto. dunida meel mujtamac duwaliyi intuu dabagalay uu xoreeyey ma taallo. umamka iyagu doonta xorriyaddooda iyo dantooda. doontaada shiraaceeda dhanka aad u jeedinaysa aday kugu xidhan tahay markaas. muslimiintu markay jabtayna ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum. lama odhan khaalid baa farsamo yaqaan ahay oo dhabarka idinka jebiyey, lama odhan ciddan kalaa oo fardaa halkan ka baxay. waxaa loogu jawaabay qul huwa min cindi anfusikum. waa riyo dadka bar waxay isugu sheekaynayaan, dunidaan rabin inaynu xorowno, gaalada rabta inaynu gumaysato, etoobiya rabta inay caynka inaga yeesho, kuwa kale dee dantooday wataan. qofku inuu dantiisa raacda wax lala yaabo maaha. war maxaad dantiina u raacanaysaan? aday garaaddarro kuu tahy inaad qof ku ashtakayso, dantaada maxaad u daba socotaa? yaa responsible markaa? mujtamac duwaliya eed ma leh, ma responsibiliga ma aha. ethoobia inay danteeda raacato dhib uma arko.
waa danteedii igad inay danteeda raacato dhib uma arko waa danteeda cidda ay tahay inuu mas-uuliyaddiisa qaado dantiisa raacdo dadnimadiisa qaato xorriyaddiisa baadi doono istiqlaaliyaddiisa raadsado midnimadiisa raadiyo horumarkiisa raadceeya waa adiga idan dadka kale shaqadoodii bay qabsanayaan qof shaqadiisa haystaana ma ceebaysna hadda iyo wakhtigay Soomaaliya joogto waxaan leenahay waqti badan oo qowmiyiin ay xagga sare joogeen way dhamaatay waqti yasaariyiin xagga sare joogeen way dhamaatay waqti qabaa'il iyo dad xoogan xagga sare joogeen way soo dhamaadeen الآن الإسلاميون على المحك هذا waxa saaran ee su'aashu isweydiinta ka taagantay waxa weeyaan qolada islaamka u nisba sheeganaysa dadka bad cabsiyo warwar buu qabaar ma islaamnimadu fashisha taasina ma jirto islaamku tajriba kuma jiro ee rag muslimiina tajriba ku jira labada kala saar islaamku 1000 sanadood buu dunida ka talinayay oo siyaasad uu hogaaminayay oo dhaqaale hogaaminayay oo ummad hogaaminayay oo caalamka ka talinayay islaamku wax 50 sanadood ka yar ayaa nabi maxamed iyo saxaabadiisa alayhi salatu wasalaam dunida kaga taliyeen islaamku 1000 sanadood buu ahaa dawla al-ula fi al-aalam isaga wax la weydiiyo isagu ka taliya kalimada ugu dambaysa leh idan islaamku inuu noqonayo shay inta la jitaabiyo laga rajo beelay ma jirto taas yaa hadaa la tijaabinaya rag baa la tijaabinaya ijtihaadkood nin wadaad la yiraahdo ayaa tijaabada ku jira islaamku tijaabo kuma jiro islaamku tijaabo uu ka baxay waana mabda caalami oo la yaqaano guuleystay waxa tijaabada ku jira markaasi waxa weeyaan waa nin wadaad loo yaqaano